magaalada muqdisho waxaan kula kulannay Professor Shaafici Yuusuf oo sida uu sheegay doorasho dhamaatay weli musharax ah Jubbaland. Professor soo dhaw waa maxay sababta aad weli musharax u tahay? Maasanta dhamaan Soomaalida waan salaamaya. علي مبروك سلام النعم بعطاي سؤال شو سؤال يرى ملطحن واحد دور الشباب اللي يمكن مدعين لأنه سيدا لو دقي هاي صاحب كي أحمد مدوبة يسعى علامة ساري سيدي لبا كل شيء تمام يسوع علامة ساري مرة بعدين دور الشباب باش عالم كله أوكتاي دولة أوكتاي أنا قلنا الأوجنا باش كسو جدنا واحد doorasho dhacay ma jirto saadarteed wali anaga iyo group kale waxaan nahay musharaxiin dadka aad arkay sidoo tanaasulaya waa dad isagu sameystay oo ahaa yaani waxaan anagu u bixinay maxalal oo mucaarad uu ka dhigay laakiin musharaxiintu ilaa imika ismaynan ma aysan tanaasulin ma tagtaadu magaalada Kismaayo haa wantay maxaa kala kulantay طبعا waa meel dictatoriyad ay ka jirto qofku uu san xor ahaan hotelka inta lagu imaado la leeyahay amnigaaga ma sugi karo waa meel haddii odayaashu ay ka hor imaadaan cuqaashu la dilayo sida la wada og yahay dabcan waa meel haddaad isaga la jirtana aad badbaadaysid hadda ka hor imaadana lagu dilay hagaag musharaxiinta kale adiga ma kula aragtiyaa dabcan badankood badankood misogtii waxaa waan isognahay lama magacay sheegi kartaa dabcan waxa weeyaan waa seeraar waa xiddig waa awmaar waa ducaale waa guuleed waa gudin qorax هذا maamulka hadda jooga inta mucaarad u yaqaan adigu mucaarad ku jirtaa igu celi maamulka hadda jooga tirada aan sheegtay musharaxiinta aad ku sheegtay mucaarad u yaqaan mucaarad ku jirtaa meesha maamulkii hore ayaa ka jira maamul hadda ma jiro aye meesha waxaan nahay dawladana waa in la ictiraafaa haddii laakiin loo noolaanaya sidii 1900 iyo eberkii cid ay taabsanaysa ama hogaamiye kooxeedka ilaa imika wax dawladoo ka jirta ama maamul ma jiro marka anagu isaga waxaan u naqaanaa mucaarad dad oo xildhibaano ah oo isugu jira labada gol ee dawladda ka qayb galay doorashada deegaanka sida la sheegay waa la codeynayay khudbadaha la jeediyay waxaasna waxba kama jiraan miya diyaarad hadduu wax codeynayo diyaarad Minnesota iyo Jigjiga iyo Gaarso loogaba soo qaadeen dadkii meesha deganaa oo xataa reerkiisa ay ka mid yihiin way ka soo horjeedeen okay way ka soo horjeedeen xaqiiqo ilaa hadda ka soo horjeedeen raggan tirinay dhammaan isku reer bay wadiyeen midda kale xildhibaanadu meesha dawladda ayaa jirta xukuumadda fulinta ayaa iska leh accreditation-ka inay tiraahdo waa dawlad ama sharciyad nin iska mucaarado saaxiibkay fiqi iyo groupkan kale waxa weeyaan meel walba oo yaani oo chance u galaya oo iska galaan oo taban ku xumee inaan ku xumeysid groupkan hadda haysta nabadii nolol hal la yiraahdo ama villa Soomaali hal la yiraahdo haday kiiya tahay cid walba tahay boon sana qaana inay ayagu iska raacaan laakiin cid ka qayb gashay ma jirto legitimate uma leh senator iyo xildhibaan inuu isagu sharciyad bixiyo waxa iska leh maamulka joogo oo fulinta hagaag halka maxaa waragtaa marka halka waxa arkaa sida saxda ah maadaama uu xoog ku yimaaday oo markii madaxweyne xasan khayrlaasi wuxuu sameeyay wax wanaaga in la sameeyo dib u heshiisiin beelaha degan si sax ay wax ku qaybsadaan kadib loo gudbo in shir la qabto marka doorasho la qabto sidaas ayaa dhacaysa waan hubaa shacabka Soomaaliyeed iyo marra u maleenin inay meesha wax doorasho ka dhacday ama ay dib u dheeranayso arrinta xogaa galmudug iyo kan way kala duwan tahay shaqo isma lahan reer Jubbaland anagu waxaan leenahay qasab waxa dhacaya doorasho xalaal ah dhacaysa waxa jirna waxba kama jiraan dib u heshiisiin way dhacaysa waan iska qabnaa arrintaana waa la wadaa mar dhow waa ka doontaa insha Allah وما فيها